طبعا dagaalku waa socdaa dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furmaha ay ku tagaan ma aha maalmaha dagaalada socdaan maalmahaas ay tagayaan waa u kuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha ay waday iyo shacabka shabaab la diriray dagaalku marka waa socdaa qorshihii uu ku socday horeeto oo lagu soo dhameystirayay wajiga koowaad ayaa wali socda meel fiican ay marayaan waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kale reformka hoggaanka sare ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka hawshu waa socotaa dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan hadaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan marka dagaalku wali waa socdaa mana aha dagaalku socodshadiisu kaliya ma markii xabadu dhacayso waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguuridda intaba qayb dagaalka kamid ah oo socota waaye marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay dawlad ahaan hal maalin ma joogsan dabcan dagaal waa dhacaan waxyaabo oo dib u dhacaya iyo oo dhoodhoojis u baahan sanadkii horeeto bishii August waatii dhacdadii weyneed oo cus weyne dhacday ay aad u saameysay ciidanka xoogga degdeg ayaa looga soo qabtay oo ciidankii dib habeyntiisa iyo nidaamintiisa iyo qalabeyntiisa iyo injineeriskiisa intaba waa howlahaas ayaa socday sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ay u bilowdeen hadda waxa hawshii faceka koowaad oo galmudug ka socday sidiisii ayuu wali qorshaha koowaad u yahay laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale uu joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kale ta South West iyo Jubaland intaba marka dagaalka si simultaneous ama si isla eg ayuu u socdaa laakiin qaybtii koowaad dhameystirkeeda ayaa priority ah baaritaanka waa socdaa soo ma bixin marka intii hordhacayd oo dawladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu xiisato oo aniguna aan ka hordhacin dawladdu hub ay Itoobiya ka dalbatay ma jiro faafahintaas waa faafahintii aan ka sugaynay warbixinta marka in aan ka hordhaco diyaarumi waa the same answer waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa taban waa hawsha sanaga inoo taala waana waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduud ay ku soo bixi doontaa duwaleerada tan maartay waxbuu la leeyahay wada ma dhahayo waa waxyaabaha baaridu laygtu waa inoo muhiim ah ilmaamin muuqaalkan si share gare oo saaxiibada la wada qaybta hoose ee commentigana aragtida saliimka inoogu reeb qodobada barnaamijkan aad kugu soo gudbin doono qiyaari aad ku daawan doontaan hadii eeba uu raali ka noqdo waxa ka mid noqonaya Imaaraadku waxa ay qaadeen tallaabo cajiib oo degdeg ah waxa idin soo gudbin doonaa xog arrinkan la xiriirta boolisku war culus ayuu soo saaray oo la xiriirta arrin ay sameeyeen wasiir afar ah ayaa awoodooda la dhimay sabab aan la ogeyn xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre buuq iyo kala shaki xoogan oo ka jira iyo xogihii ugu dambeeyay ayaan halkan idinku baahi doonaa daawade hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran laygtu waa inoo muhiim ah ilmaamin muuqaalkan si share gari oo saaxiibada la wadaag qaybta hoose commentigana aragtida noogu reeb aynu ku bilowno xildhibaan Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa weerar culus oo dhanka afka ah ku qaaday xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xildhibaanka ayaa si gaar ah eedayn culus ugu jeediyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay inay awood tir ku sameeyeen wasaaradaha muhiimka ah ee dawladda Saadiq ayaa shaaca ka qaaday in la culeemiyo 4 wasaarad oo kala ah amniga gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda iyo maaliyadda waxa uu tilmaamay in wasiirada la hoosgeeyay shakhsiyaad kale iyo shirkado kuwaas oo qabanayo shaqooyinka muhiimka ah ee wasaaradaha sida uu hadalka u dhigay arrintan ayaa waxay tahay mid si aad loo hadalhayo isla markaana abuurtay xaalad kale maadaama hore ay u soo ifbaxayeen warar kale oo sheegayay in wasaaradaha qaar shakhsiyaad ka awood badan wasiirka la geeyay kuwaas oo iyagu wado shaqooyinka iyo howlaha wasaaradda ay qaban lahayd
wasaaradaha qaranka gaar ahaan kuwooda muhiimka sida gaashaandhigga, amniga, maaliyadda iyo arrimaha dibadda oo ay ahayd in qaranka loogu adeego. waxaa laga qaaday awoodihii ay lahaayeen, waxaana laga dhex abuuray awoodo kale oo qarsoon sida hay-ado iyo wakiilo idman, ayuu yidhi xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi. sidoo kale wuxuu kusii daray waxaa kale oo jira shirkado qandaraaslayaal ah oo shaqadii wasaaradahaas la wareegay, waxayna galeen heshiisyo amni oo qarsoodi ah oo golayaasha dowladda aan la horkeenin, ayuu yidhi isaga oo sii hadlayay. arrintan ayaa waxay dhalisay tuhun xoogan iyo kala shaki, waana mid ay tahay in si degdeg ah arrinkan loo hadal qaado ama meel loo dhigo. xildhibaanka oo hadalkan ka jeediyey baarlamaanka dhexdiisa ayaa sheegay in wax shaqo ah aysan hayn wasaaradaha qaar, islamarkaana aysan ahayn wax mas-uuliyad ah, balse kaliya ay ku magacaaban yihiin wasaaradaha ay joogaan oo ay iska dhex fadhiyaan. madaxda wasaaradaha waxa ay maamulaan qalfoof maran maamul ahaan iyo maadi ahaanba, ayuu mar kale yiri. hore ayaa eedan oo kale waxaa u jeediyey xubnaha mucaaradka oo sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu awoodii soo koobay, islamarkaana uu shaqsiyaad isaga si aada ugu dhow u gacangeliyey. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa eedeedu muddooyinkii ugu dambeeyey ee si aada u taagneed, halkaas oo wasiir ka yahay axmed macalin fiqi oo ah nin saameyn xoogan ku leh dowladda federaalk ee Soomaaliya, balse waxaa awoodiisa la hoosgeeyey oo loo dhimay nin lagu magacaabo Cali Balcad oo saaxiib la ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud, isla markaana ah wasiiru dowlaha wasaaradda. shirarka qaar waxaa jooga Cali Balcad oo inta badan ma tago Axmed Macalin Fiqi. shirarka Axmed Macalin Fiqi tagana waxaa daba socdo aan ka harin Cali Balcad. waxaa la isweydiinayaa sababta Cali Balcad uu mar walba u daba dhigto ama uu la joogo wasiirkii, maadaama shaqada ninkii lahaa asalka ahaa uu joogo. geesta kale daawadeen afayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlgal burburin ah oo ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Cabdifataax ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la wareegtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha oo ku taala degmada Boondheere si loogu shaqeeyo dadweynaha Soomaaliyeed maadaama ay degayso wasaaradda arrimaha gudaha. waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee ku taalay degmada Boondheere agaarka Juba ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha oo ahayd xarun loogu adeegi jiray bulshada, in saaka ay la wareegtay dowladda Soomaaliyeed, ayuu yiri afayeenka ciidamada bilayska. sidoo kale afayeenka ayaa xusay in dib loo dhisayo xaruntan, isla markaana uu diyaar yahay mashruuci dib loogu hirgelin lahaa xarunta wasaaradda si ay u shaqeyso. afayeenka ayaa sidoo kale u mahad celiyay shacabkii deganaa dhulkan saaka ee la burburiyey, kuwa ugu dambeyn laga raray xarunta oo muddo ay deganaayeen. dhinaca kale afayeenka booliska ayaa digniin u diray dadka weli degan dhulka danta guud, waxa uuna sheegay in looga baahan yahay in ay ka guuraan, isaga oo ugu baaqay in ay la mid noqdaan shacabka. uu saaka ku tilmaamay in markaasi ay deegaankan ama dhulkan baneeyeen. afayeenka ciidamada booliska ayaa sheegay in ay qabteen shaqo aada muhiim ah dadkii deganaan dhulkan, kuwaas oo dowladda federaalk ee Soomaaliya qaatay amarkeeda. dowladda Soomaaliya ayaa horey sidan oo kale u burburisay xaafadda Debdemiska oo ahayd dhul dan guud ah, waxaana laga raray shacabkii deganaa halka. toddobaadkii hore sidoo kale waxaa la burburiyay xaafad kale oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho kadib markii gabar u dhalay Maxamed Siyaad Barre loo xukumay dhul halka ku yaal oo ay deganaayeen dad shacab ah, waxaana weli taagan xiisad ka dhalatay burburinta lagu sameeyay aagaasi. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaan la ogeyn tallaabooyinka xiga arrinkan oo ay qaadayso, maadaama ay jiraan dhul badan oo dan guud ah oo weli la degan yahay. xiisad xoogan ayaana arrimahan ka dhalata marka la yiraahdo hala dadamiyo dhulalka danta guud ah. ugu dambeynna dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa qaaday tallaabo culus oo ay ku xoojinayso xiriirka Soomaaliya, waxaana maanta xafiis cusub oo muhiim ah ay ka furtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. safiirka Imaaraadka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Axmed Jumca Rumaysi ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray xarunta bixinta dalku galka, taas oo hadda kadib dadka Soomaaliyeed ay ka qaadan doonaan fiisaha. Danjire Axmed ayaa shaaca ka qaaday furitaanka xaruntan ay ka mid tahay xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, ayna ka go'an tahay inay sii horumariyaan iskaashiga ka dhaxeeya labada dowladood. xaruntan cusub ayaa waxa ay noqonaysaa qunsuliyadii ugu horeysay Imaaraadka Carabta ka furay magaalada Muqdisho tan iyo burburkii kadib.
imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha carabeed ee haatan xiriirka wanaagsan la leh dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaana xiriirka sii ballaartay dib u doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud 15 May dowladda imaaraadka carabta ayaa Soomaaliya ka taageerto dhinacyada dhaqaalaha bini'aadanimada iyo diidmada ama ciidamada waxa ayna saldhig ku leedahay magaalada Muqdisho kaas oo ay joogaan saraakiil sarsare oo tababar xoogan siiyo ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya isla markaana ka caawiyo sidii ay markaasi ciidamadu waqtiga badan loo geliyay looga miran lahaa dadaalkooda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa imaaraadka la leh xiriir aad u wanaagsan isla markaana waxa ay qayb lixaad xitaa ka qaadatay dib u doorashadii madaxweynaha sida dad badan ay qabaan waxaa dowladda imaaraadka carabta sidoo kale ay ku eedeeyaan mucaaradka qaar in ay qayb ka tahay fitnada iyo dhibaatada ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyada oo markaasi wadan ka qabato shaqooyin aan la ogeyn daawada halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka amaana Allah